xogayaha arrimaha gudaha ee xisbiga Cid Ramax Cali haysto halkan oo ah hotel Haasi magaalada Burco jiraayad ku qabtay ayaa waxa uu ka jawaabay hadal ka soo yeedhay afayeenka xisbiga talada dalka ayaa kulmiye Cabdinaasir Buunig xogayaha oo ka hadlaya arrimo badan ayaa sidan yiri maanta halkan waxaan runtii laba kelmadood ka oran doonaa afayeenka sheegtay inuu kulmiye u yahay afayeen on runtii aad uga xumahay waxa uu ku faanayo iyo wuxuu ka faanayo iyo wuxuu shalay isagu ka ahaa dalka ama xusbigii uu markii hore ku abtirsan jiray waxa runtii nasiib wanaagii ah inay maanta ka soo yeedhaan oo uu ku faano maxaa la yidhi faanku waa xoolo aan cidi lahayn laakiin kan cid baa lahayd kuwii lahaa ee ku faani lahaa boqolkiiba 54 kuwii keenay annagay ahaayeen iyo raggii la mida qof keligii ma keenin xusbi baanu ka tirsanayn kumana ciil qabno kuwii ku faani lahaa annagay ahaayeen inuu Buuni ku faano runtii waa nasiib darro Buuniyow forbensartkaad ku caayayso xusbiga Ucud xilliga xisbiga Ucud baad ahayd kuwii forbensartka keenay baad ahayd anna waxaan ka mid ahay kuwa 54% ka aad sheegayso kuwii keenay uqdada kama qabno waxaanad fahminna xusbiyada qaranka iyo danta qaranku inay ku jirto xusbiyada qaranka haday yihiin kuwa mucaaridka iyo haday tahay kolba xusbiga markaa ku guuleysta ee talada haya fulin ma tihid waad ogtahay habeenkii dhoweyd waxaynu kala saxeexnay xilli doorasho la galay nidaam bay leedahay doorashadu madaxweynuhu go'aan fiican buu qaatay xusbiga kulmiye go'aan fiican bay qaateen wadani Ucud saddexdo xusbi iyo komishinkuba runtii way ku hambaliyeysan yihiin qabsami u socodka doorashada shuruucdii aynu u dhiganay baad runtii ku xadgudbaysaa oo tii dalkaad ku xadgudbaysaa oo tii xusbiga kulmiye laftigiisa ayaad runtii ku xadgudbaysaa horta waxa la ragii forbensartka keenay baad ahayd adaa ka number 1 aha waxyaabo xusbigu ku jabayna ashqaastii hoggaanka ka mid ahayd ee markaa ugu cadcadayd baad saaxiib ka mid ahayd laakiin anu waxaan ku odhan lahaa hawshii aad boorama ka haysay inaad dib ugu noqoto taasaad shaqadaasaad ku fiicnayde inaad taa berigii aan badho saabkaa shaqadii aad ka haysay boorame inaad dib ugu noqotaa baa kaaga fiican tan runtiina waa nasiib daran leh xusbiga kulmiye waa xusbi qaran oo jira asxaabta qarankana waxaynu u samaysanay inay isdheeli tiraan maanta ka forbensartka helay waxaan rajaynaynaa inaanu 50% helo waanaad arki doontaa doorashadii ayaan baa ka hadhay waxay ku xidhan tahay kolba xusbiga muxaafidka mucaarid baa ka hor iman kara shalay kulmiye mucaarid buu ahaa wuu ku guulaystay waa loo hambaliyeeyey kama xumin inaad marka hore faanto xusbinimada waxa loo samaystay maantana inaanu idinka ridano oo idinkaga badsanno dadka dhexdiisa ayaanu rabnaa laakiin waxa nasiib daraa in nin magac xusbi ku hadlaya uu qaabkii fulinta uu hadluu yiraahdo hal la soo xidho xusbiyada qaranka ee kale oo uu ogyahay inay xeer dastuuriya ku aasaasan yihiin kana mid yihiin rukinada iyo arkaanta dalku ku aasaasan yahay ayay ka mid yihiin xusbiyada qaranku ama mucaarid ha noqdaan ama muxaafid ha noqdaan sida daraadeed waxa leeyahay marka aad saaxiib jawaabayso ama aad rabto inaad cid durto inaanad ka bixin saaxadda siyaasadda waana aanan leeyahay runtii aad baan uga xumahay in xusbigii dalka taladiisa hayay uu maanta aad afayeen u noqoto waynu isognaayoo dee waxaad tidhi anagu waxaanu ku jirnaa kelmaddii aad dadku u dhibsaday ee aduguna aad ku faanto oo runtii la yaab lahayd oo xusbiga kulmiye laftigiisa mowqifkiisa aan ka turjumaynin ee aad lahayd waxaanu ku jirnaa maxay baashaal miyayd faakahaysi baanu ku jirnaa
afka siyaasadda way ka baxsan tahay kelmadaha caynkaas xusbi taladii dalka oo dhammi saaran tahay oo subax walba waajibaad ay gutaanu yaallo oo hoggaamintii dalkoo dhammi inay u fadhido inaad ku tilmaamto oo weliba aad macsharrada kaga faanto faakahaysi baanu ku jirnaa runtii nasiib daray ay tahay fariintaan u dirayo saaxiibbaday ama xusbiga kulmiye iyo hoggaankiisa sarena waxa weeye dee ceeb buu idinku yahay anugu aflagaadayn maayo siduu aflagaadoodo laakiin ceeb bay ku tahay xusbi qaran oo weliba taladii dalka maanta gacanka ku haya in lagu daydaabaa ku waajiba xusbiyada kale dalkaynu wada leenahay waynu wada ilaashanaynaa inaydaan keenin saaxadda hore inaydaan soo marinin noocyada sidaa u hadlaya oo aan ilaalinaynin sharciyaddii xusbiga xeer hoosaadkiinii xusbiga laftigeeda aan ilaalinaynin kimishinka qaranka oo maanta awoodda ugu sarraysa ee ka talinaya habsami u socodka doorashadan sidaa daraaddeed waxaan leeyahay midda kale been abuurku runtii ma fiicna way jirtaa cabatinno naga soo yeedhaya cabatinkuna maalin walba wuu tahay meel la shaqaynayo cabatin iyo dhaliilo iyo way jiraan waannu dhaliilaynaa waxaannu leenahay markaannu ka cabanno musharaxiin xidhan oo aan ahayn inuu been abuur yidhaahdo caynabaa musharaxiinna nagaga xidhantay ilaa hadda ma hayno manaydaan shaacinin magacyadooda hadday xidhan yihiinna xaqdarro ayay ku xidhan yihiin waxaannu leenahay afkiisay ka soo baxday magacyadoodii lama hayo meelay ka jirtana lama hayo isagardaamayntu waxay ka imanaysaa qaar sidaadoo kale ay xilgudashadu ku yar tahay oo aan garanaynin waxa loo tartamayaa waxa uu yahay loo tartamayaa xabad laysu qaadan maayo waa tartan xalaalabaa ka dhaxeeya xusbiyada qaranka waxaan leeyahay ku soo noqo weliba waxaan odhan lahaa xil horu wayn jiray baa jiray boorame inuu xilkii dib ugu noqdo ayuu kaga fiican yahay taana saaxiibbaday baannu iska waraysanaynaa inay kaa u dhiibataa ama ka abboonayde inkastoonan filayninba inay kulmiye ka mid yihiin hoggaankiisa sare raguu shaqooyinkaa aan tilmaamayo uu u qaban lahaa cabdiqani baafo telefishinka caalamiga Star TV magaalada Burco.